إنسان وحاوي بلاس 2 5 2 6 1 8 7 8 9 9 1 0 والله النمبر كاسواي هل دور كنتونك لبضل دور شن دور انتاد وحاوي لباتن كنا داوت هدات هلي كرت اسكو داي walaalka ina caawisid caawi walaalka dhibaataysan waay السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحاب وقتي والب نروح إنه داونيس وإذن سلامنا سلام كل إله بهود إذن سومرنا مدة كالعاوة وحاول وحنا نجبرتين إن بدن رياكشن إنا صوبحنا مر وحياة بدن رياكشن كصوبحنا لكن عاوة رياكشن كلا ودنا إنت رياكشن كأن بلا ولا فيديو جي لايك إيسار كومنت فكرك هذا يقول عصبتين قعم فرن قلبي وناكسم كسودو وحان إيسارتا سبسكرايب فيديو لايك فكر كذا إيرب وإيه مهم وحان كلام كعد سنة أصحابتي فيديو بالشيء أصحابي الشيء إذا كعد سنة عاو الشيء وعدسي مهم داس هذا الكي قيمة شيء يسميه والله عاو وحان سوق هذا الني أما أن كهذي دونا من أول سقانات فناوين ده يحضر نورشة مقالة حمل كسرن السجو بغدي ضد إسكا لباتيسن حالة الدنيا إسكا هيستو وحاول وأركتين مساكيمها ميل والبين لو ذا بغدوي وناكسنتها والله وح أن كتل ما مقرن ماي فيديو جاسي وح والبو وتا وحان أن كده جينا أم ويهيب عاوي ولالك دبيسن عاوي ولالك دبيسن والله بالله واد أركي دوتان إلى داون دوتان أنا مركان داودي إنتان فيديو جان سوق هذا أن داودي إلى البدن وح أن كتل ما مقرن ما إذا كان وإلى داون دوتان فكر كين وح والبن وذا سجينا إنا وذا عاوين tobankii daawata ama 20kii daawata ugu filan oo halkiiba 2 door ama 3 door u diro intaas caawimaad intaas idinka ma dareemi kartiin waa 320 qof min 2 dollar hadii dhaho waxa way 400 dollar way gaare intaas aan ugu filan videoga daawada idinkoo raali ah kullee walaalka dhibaysan caawa videogan waa nin weyn waa dayaxdal nuurshe ila daawada dayaxdal nuurshe ayaa muujin oo san kaliya u taagnayn madadaalo music iyo ciyaar wuxuuna soo bandhigay inuu yahay fanaan u damqada shacabkiisa gaar ahaan kuwa baahiyaha gaarka ah qaba kuwaas oo u baahan caabinaad iyo daryeel gaar ah halkani waa xarunta naafada ee Sanca Center fanaanka ayaan u kuurgalay inuu soo xog wareysto xaaladda dadka naafada ee ku jira xaruntan kuwaas oo u baahan agab kala duwan oo isugu jira biraha socodka ee naafada wheelchair ama kursiga loogu talagalay waad arkaysaan dayax wuxuu tagay ama uu joogaa meel dad dhibaataysan wallahi caruur dad waaweyn waa isku dhex jiraan ayuu joogaa meesha hadda wada arkayna dad iska dhibaataysan caruur waxaan ku tilmaamay garanayna meeshaas uu joogaa dayaxdal nuurshe caawimaad uu meesha u tagay inuu dadka masaakiintii wallahi qof walba walaalka ah inaad caawisid oo dhibaato haysto waa muhiim laakiin dadka way kala daran yihiin meesha dayax hadda joogo wallahi caawimaad zaid ah ayay u baahan tahay dadka naafada ah usha ay qaataan dadka aragga la iyo baahiyo kale oo ay fanaanka u gudbiyeen dadkii wareystay marka hore dhammaan dadkii joogay xarunta ayaa si lama filaana ku noqotay inuu soo booqday dayaxdal nuurshe waxayna dareemeen in xaalad walba ay ku jiraan laga warhaayo waxayna ogaadeen bani aadamku inuu ku jiro sida dayaxdal nuurshe oo kale fanaanka ayaa gudagalay xog wareysi iyo sidoo kale in mid uu xaaladoodii u weydiiyo dadkaas baahiyaha gaarka ah qaba waxayna u gudbiyeen fanaanka xog dhameystiran ee uu la wadaagay dadweynaha marka anaga waxa isku xilqaanay in maxaa la ii sheegay dadka wax u qabano oo dadka caawino oo waalidiinteen maanta waxa waa caruurtan soo korayso bari marka maxaa la ama geeriyoono ama maxaa la ii sheegay aan gabowno in ayaga wax noo qabtaan ama ay dhahaan qofkaas wuxuu noo qaban jiray been maahan wallahi dayax hadal uu ka dhawaajay uu dhahayay bari markaan gabowno ama aan waxa way nolosha waqti walba ku joogayso naftii aad geeriyooto waxyaabo badan xasuus oo wanaag inaad dadka walaalaha wanaag haday ka sheegan ninkan in fiican buu ahaa 4 qof oo muslim ah wanaag haday ka sheegan wallahi reer jannada tahay jannadii wallahi wax ka hortaagan malaha jannatul firdaws wad galay marka dayax sidii uu sheegay wanaagan waxaad u sameeysaa ilaahay dirtiis maahan istutus maahan walaal wanaag waqti walba ku dadaal marka si ilaahay dartiis waay waxaan isku daynaa inaan wax badan ka bedelno maxaa la ii sheegay nolosha hadda halkan ka jirto haduu ilaahay raali ka aado waqtigan noo saamaxo waa nolosha kulli baahiyooyinkiina dhan xagaana ay ku qoran yihiin
hadda marka waxaan rabnaa oo kaleento barnaamijka oo ciidsiinta oo waxaan isku dayaynaa dadka yar caruurta yaryar oo aadka u yaryarna inaan maxaa la ii sheegay haddii ilaahay raalli oo ka ahaado inaan dhar ciid u sameyno maalinta ciidana sida adduunka oo dhan iyo dadka muslimiinta oo dhan ay u ciidaan inay dadka waaweyn oo dhan oo halkan joogo waalidiinta leh oo dhalinyarada leh ayagana sidaas oo kale inay u ciidaan oo ciidda alla qaybsataan ummadda kale maxaa la ii sheegay halkaas joogto waxaa kaloo insha Allah isku day karna doona oo gudoomiyaha ii sheegay biraha lagu boodo iyadana in loo baahan yahay iyo wheelchairka oo dadka maxaa la ii sheegay ku socdaan gudoomiyaha xarunta naafada Sanca Center Cabdi Xuseen Cagalaab ayaa ka mahadceliyay booqashadii Dayaxdal Nuurshe isagoona si gaar ah farta ugu fiiqay inay u baahan yihiin in loo sameeyo shaqo abuur dayaxo waad mudan tahay waad mahadsan tahay waqti walbana waad mudan tahay waayo dadka shacabka walaalaha ka fog iyo ku dhow adaa tusay caaw dadkan dhibaataysan ama maanta ama waqti walba ay ahaata adaa tusay dadkan dhibaataysan inay wax u qabtaan adnu waad samaysay maasha Allah waad mahadsan tahay anakan waa ku leenahay numberkan waad arkaysaan waxa waay +25261878910 wallahi numberkaas waay $1 kontonka $2 $5 intaad waxa waay 20 kana daawata hadaad heli kartid isku day walaalka inaa caawisid caawi walaalka dhibaataysan waay dayaxo dhamaanteena kule waad mahadsantahay marka xiga waxa maad iska leh walaalkeen oo maanta nagu soo booqdo xarunta naafada Sanca Center ayaa ugu mahadcelin waa fanaanka ugu horeeyay horta ee soo booqdo haddana dadka baayaha gaarka qaba maanta ahwaashooda aan ogaha iyo arimooda ogaa dhahayo oo iskala weyneen marka alxamdulillah waxa waa dadka baayaha gaarka qaba dad badan oo waxa jiraan xoogaa iskala weyn aba jiraan oo waxa kala jiraan laba kala duwan marka inuu ninka naafadii amarkano oo qofka naafada ilaahay naaf ka dhiga dad aan ogeynaa jiraan alxamdulillah waay meesha horta u jeedaan centerkan center hal yiraahda baay badana ka jirto baayada ka jirta dadka ana arkaysa cidna u maqnaa u maqodno hadda gabdhaha arkaysiin waa gabdho garguurana waa waljeer u baahan yihiin waxa kale oo jiro isha kuwa oo biro oo ku usbuuda jiraan biray u baahan yihiin waxa jira macallin oo harqaan oo dadka balaa jiro wuxuu baahay mushaar ko weyn arqaamo ku haysana macallimad oo waxa jirta cilaan saar ka saartaa jirta iyadana waxay u baahan tahay isha mushaar u baahan tahay waxa way videogi intaasan ka soo qaadanayna asxaabta waxa way numberkii wax walbana waa idin soo saaraya wad arkaysaan anaa afka idin kaga sheegay waan idin soo saari waa +25261878910 waxa way caawi walaalka dhibaysan ciidii way soo dhowdahay waa next Friday insha Allah Friday-dan soo socoto waaye ma foga walaalka dhammaan waxa la dhahay caruurtii dadkii weeyna gabdhihii dhalinyaradii dhammaan inay wada ciidaan isku day inaad caawisid dayaxo waxaan ku leenahay 1 jeer waa mahadsantahay sida wanaagsan ama walaalahaaga u gaarsiisay walaalaha dhibaysan dadka kale ugu bandhigtay u gaarsiisay wallahi waa ku mahadsantahay adna wanaaga sameysay waxaan ku leenahay mid la mid ah ka sii wanaagsan ilaahay ka abaal marin doona insha Allah asxaabta isku day waqti walba dadka dhibaataysan ina caawisid isla weyno waa laga fiican yahay wax walbana horumarka guush qof walba guul gaar hadaa aragtid wallahi waxa waaye waxyaabo badan ayaa waxa lagu kala tagay marka waad fahmi kartaa qalbi wanaagsan hay waxa waay gacan furnata waa dhigi karna laakiin waqti walba isku day hatta qofka binaadinka hadaan wax siin qalbi wanaagsan videogi intaasan ku soo gabagabeynaa hadii aad ka heshay videogi waxa way like saar comment fikirkaaga hoos nooga reeb hadaan ugu cusub tahay qalbi wanaagsan ku soo dhaw subscribe noo taabo video like noo saar fikirkaaga hoos nooga reeb waxa idin leenahay waqti walba aan is caawino assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh